markii ugu horeysay taariikhda taajka cad ee maanta inta ugu badan aroosyada dumarka caalamka ku nool ay soo xirtaan waxaa arooskeedii u soo xiratay Queen Victoria markii uu guursanayay boqorka Ingiriiska Prince Albert bishii February sanadkii 1840 sababtuna waxay ahayd cadaanka oo ahaa midabka aad u xiiseyso wixii waaga ka dambeeyay indhaha caalamka ayaa soo jiitay labiska Queen Victoria ilaa maantana gabar kasta waxay ku adkeysanaysaa in arooskeedii loo xiro taajka cadaanka ah iyadoo aan isweydin halka uu ka yimid asal ahaantii dalalka kale ah India, China iyo Vietnam way qaateen fikradda taajka cad waxay midabkiisa ka dhigeen gaduud maadaama gaduudka dhaqankooda sumad ugu yahay farxad iyo diilo fiican Soomaalida iyo Carabtana oo ah dad ilbaxnimo ahaan isu dhow waxba kama bedelin farsamada Victoria ee waxay u qaateen sidiisa Ingiriiska ay ka soo jeedo Queen Victoria diin iyo dhaqanba ma wadaagno ee talo uma xadiiday in gabdhaheenu labiska guurka ugu daydaan saxaabadii aan ka soo gaarnay diinta oo ay xirtaan xijaabka sharciga iyo dharka asturan ee hidaha dhaqanka sidaan isleeyahay damiirna rag ah ma aqbali karo in xaaskiisii loo xiro taajka cadaanka oo ay indhaha dadka soo qabtaan maadaama aysan ahayn badeeco la suuq geenayo oo ay tahay boqorad loo galbinayo qasrigeeda ee talo ma jira taaj asturan hadduu jiran ma arkay maxaa dhacay